mar labaad diyaar ma u tahay in dowladda maraykanka ay ku siiso $1,200 ama akoontigaaga bangiga lagugu soo rido ama gurigaaga check lagugu soo diro? jawaabtaas haddee haa tahay, haddaba waa laga yaabaa mar dhow inaad lacagtaas heshid. haddaba waxaan ku yidhi waa laga yaabaa, waad helaysaa kuma oran. waa inay salaamaa khiyaarta sharafta leh meel walbaad joogtaan. waa maxamed faarax. xalay fiidkii aqalka hoose ee maraykanka ayaa waxay ansixiyeen Heroes Act bill. biilkan isaga waa $3 trilyan. waxaa loogu talagalay waa aqalka hoose siday dhaheen in caabuqa coronavirus maadaama dhaqaalaha maraykanka burburiyey 40 milyan oo maraykan ay shaqo la'aan tahay, gobollo badan oo maraykanna uu affect gareeyey, shirkadooyina ay suuqa ka baxeen, dadkii waa anigii adigee dadka maraykanka ahna ay shaqo la'aan yihiin, guryaha kale iskaga bixiyaana ay haysan, waxay ku adeegtaana ay haysan, in lagu caawiyo dhaqaalaha dib loogu nooleeyo. biilkan isaga ah qodobada ku jiro waxaa ka mid ah qof walba oo maraykan ah ama ha yaraado ama ha weynaado in la siin doono hal mar $1,200, qoyskii ilaa tiradooda la siin doono ilaa $6,000. sidoo kale qof walba oo maraykan ah ama SI ha qaato ama yuusa qaadanin ama mataqaanaa canshuurta markii la xareynayo dependent ha lagu siiyo ama ayaa lagu xareeyo ama yaa lagu xareynin, waa qof walba wuxuu helayaa $1,200. sidoo kale waxaa biilkan ku jiro asagana in kirada iyo mataqaanaa iyo utility biilka dadka maraykanka laga bixin doono, laga caawin doono $600 la siin doono, extension lagu subin doono federal unemployment-iga dadka shaqo la'aanta markay xareeyaan gobolada maraykanka caabuqa coronavirus saameeyey burburiyena la taakuleen doono. dadka ka shaqeeya health workerska isbitaalada oo caabuqa coronavirus la dagaalamayo, sidoo kale testing kitska in mataqaana ayadana qarashaad badan loogu talagalay oo lagu horumarinayo loo dhigay, iyo sidoo kale $10 billion EIDL loan small businesska in lagu caawiyo, iyo qodobo aad iyo aad u fara badan oo aan ka tagay laakiin waxaan soo qaatay intii muhiimkeed. haddaba qodobadan waxaa ugu muhiimsan oo dhammaanteena wada qusay waxay tahay $1,200 ma laga yaabaa inaan helno hal mar oo kale. markii hore waa helnay, mar labaad ma laga yaabaa inaan helno. biilkan isaga ah xalay markii la ansixinayay si dirqi ah ayuu floorka ku maray, aqalka hoose ku maray. Nancy iyo saaxiibadeed ayaana soo qoray, dimuqraadiga ayaana soo qoray, walow dimuqraadiga u wada dhameen biilkan. haddaba waxaa yes tiri yay tiri 208 legislatures. waxaa ka mid ahaa 207 waxa ay ahaan dimuqraadi, hal ka mid ah wuxuu ahaa republican oo biilkan aqbalay. ninka republicanku aqbalay waxaa leedahay John King oo ka soo galo New York. sidoo kale waxaa no tiri nay tiri 199, 14 ka mid waxay ahaayeen dimuqraadi. micnaheeda taas maxay ku tusaa biilkan in dimuqraadiga xataa aysan ku midaysnayn. 14 dimuqraadi ayaa kasoo horjeestay biilkan oo tiri maya ma rabno, waa inuu burburaa. haddaba aqalka hoose sidirqa kusoo baxsaday sharciga maraykan. markuu wax sharci laga dhigayo law laga dhigayo waa in aqalka hoose soo maraa, aqalka kore ku baasaa, kabacdi madaxweynaha waddanka saxiixa. ma laga yaabaa aqalka sare ayuu hadda biilka aaday, ma laga yaabaa in la ansixiyo? haddaa og tihiinba republicanka dhammaantood hal mooye inta kale nooc ayay dhaheen aqalka hoose. aqalka kore waxaa xukumaa republican atooraha weyn ama ugu qaabaladarka weyn Mitch McConnell, odaga kasoo gala Kentucky ayaa maamula. haddar ka horna uu hadlay, wuxuuna biilkan uu kasoo horjeedaa asaga iyo republican aad iyo aad u fara badan. waxaa laga yaabaa biilkan in ay adag tahay inuu maro aqalka sare, laakiin 45 ayay yihiin dimuqraadiga, halka republicanka ay yihiin 53. labana waa independent. haddii ay dimuqraadiga shukaansadaan rag badan oo aqalka sare ah soo dhufsadaan qaar, waxaana laga badbedelo biilkan, republicanka waxay rabaan lagu daro, waxay rabeenna laga tuuro, waxaa laga yaabaa biilka inuu maro
ama suurtagal tahay inuu baaso. laakiin hadduu aqalka sare baas gareeyo uu maro madaxweyne Trump iyo White House ka waran ma laga yaabaa inuu madaxweyne Trump biilkan ansixiyo mise laga yaabaa inuu diido. haddaba wuxuu yiri madaxweyne Trump in biilkan uuba inta uu soo gaarin uu dhintay. macnaheedu tahay in biilkan uu veto gareyn doono. madaxweyne Trump lama dhacsana waxay soo qoreen Nancy iyo kooxda dimuqraadiga, waayo biilkan waxaa soo hagaajiyay isku soo duburida kaliya dimuqraadi. mar waxaa ficineed inay isku imaadaan dimuqraadiga republikaanka, wax wada qoraan, tanaasul u dhaco, waxna ay ka tagaan dimuqraadiga, waxna republikaanka ka tagaan, dan markaas faloorka hoose iyo kan koraba la keeno. laakiin madaxweyne Trump wuxuu ku hanjabay in biilkan uu veto gareyn doono. ugu dambeyntii jawaabta aan wada sugnaa maanta maxay tahay? ma laga yaabaa biilkan in la ansixiyo? ma laga yaabaa ani adiga mar kale $1,200 bilaasha inaan helno? haddaba waa laga yaabaa. wax walba waa macquul. aqalka sare hadday ka wada shaqeeyaan, si wanaagsan wada shaqeeyaan, waa laga yaabaa in la ansixiyo. haddiise ay ka wada shaqeeyaan republikaanka mayalka adag, hadday diidaan ku madax adeegaan biilka inuu cuntumeyn, waxay u badan tahay xaaladda in aqalka sare biilkan dhaafi waayo. xataa haddii laga dhaafiyo aqalka sarena, madaxweyne Trump ayaa biilkan la dhacsaneen oo ku dhaartay inuu veto gareyn doono. khubarada dhaqaalaha waxay saadaalinayaan in xaaladda ay adag tahay, lagana yaabo in la ansixiyo, lagana yaabo in la diido. balse wixii akhbaaraad oo ka soo kordha qaasatan aqalka sare inay mataqaana aqbalaan ama tanaasul dhaco waa idinla soo socodsiinayaa. maxamed faarax oo idinkaga tegayo sidaas nabadgelyo.